اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. waxaan ka hadlaynaa maantay dadka mas-uuliyiinta ah rabaanna inay ummadda mas-uul ka noqdaan deganna guryaha dadkooda ay raalli ka ahayn. waxaan isbishaal toos ula hadlaynaa ninka la yidhaahdo xidig ee degan guriga camir tarmuum ay u tageen dadkii iska lahay guriga ee yiri lacag baa iga gashay guriga 20,000. marka waxaynu leenahay haddaad doonaysa inaad Soomaali mas-uul u noqoto ama maamul ha ahaado goboleed ama dowlad ha ahaado xuquuqda dadka madaxda inaad u noqoto aad rabto iska dhoof ceeb ka hesho. waxaynu leenahay dadka maamulka madaxda ah inay xuquuqda dadka kala haysto ay dib u eegaan, khaasatan dadka la yaqaan, dadka aan la aqaanin oo shacabka wax kala haysto walaaqyaha wato shaqooyinka kala wataan, taas waa sheeko kale. laakiin ninka mas-uulka ah guri ma weynin, dowladdana guri uma weynin, dowladda marka waa in hawshaas ay galaan. camir tarmuum ilmihiisa gurigooda in looga baxo, taas baan maanta caalamka ogeysiinaynaa meel kasta ay joogaan. innagu waxaynu nahay dadkii banaadiriga reer banaadir iyo madaxda reer banaadir oo dhan ayagana waa inay saas u eegaan dadka reer banaadirka guryahooda, dadkii lagala hadli karo oo laga saari karo oo mas-uuliyiinta oo meel loo raaca leh in loo tago oo lala hadlo laga saaro. waxaynu leenahay markii aan dhahayno guryaha dadka looga baxo, annaga dadkayna keliya banaadir ma u hadlayno, dadka ka yimaada puntland, ha ka yimaado jubbaland, ha ka yimaado koonfur galbeed, ha ka yimaado hiiraan, galmudug dhammaan iyo hirshabeelle, banaadirka dhexdooda cid kasto oo gurigooda la haysto oo la yaqaan qofka haysto waa in laga saaro. intaas baan maanta u imid inaan meeshaan ka sheego ummadda la gudbiyo. aniga dowladda ma kala qaadayo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, dadka la shaqeeya ayaga waa ceeb inay degnaadaan guriga shacabka, waa ceeb ayaga ceeb ku tahay, ayaga bay ceeb ku tahay. waa inay ka fiirsadaan, ay la hadlaan dadka madaxda oo guryaha dadka degan ha ka baxaan guryaha siisa dowladda. marka taas baynu leenahay qof kasta oo Soomaali ah ama oo Soomaali investment ku subsada xoolihiisa gashtay, xoolihiisa waa inay amaan helaan. haddii kalenta waddanka hor u socon maayo, ma horumarayo, investment lagu tuubi maayo, cid kastoo ka shaqeynaysaa. marka taas baan ummadda u sheegaynaa. dowlad kasta oo timaado cid aan cambaarahayna male, laakiin waxaan ka hadlaynaa wixii xaq ah baan ka hadlaynaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. anigoo ah sheekh fuaad bin caqiil al qurayshi. والسلام عليكم. تبعنا مملوك لي من قدس التائه